iyadoo ay la xiriirdo iskaashiga Shiinaha iyo Djibouti ee dhanka tababarka xirfadaha ayaa maanta waxay u ahayd maalin farxada dugsiga sare ee farsamada gacanta ee Lig goobtaasi ayaa waxa ay noqonaysaa midii ugu horeysay ee nuuceega ee kala ee laga hirgeliyo qaarada Afrika oo laga furay dugsiga Lig madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa gudoomiyay munaasabada qodobka looga jeerayay xarunta farsamada gacanta ee Liibaan taas oo lagu baran doono qalabka looga shaqeeyo tareenada xaruntan ayaa waxaa la asaasay sanadkii 2016 markii ugu horeysay ayaa waxaa iska kaashaday Shiinaha iyo Djibouti waxaana ay u adeegi doontaa farsamada gobolka iyo tababarsiinta dhanka qalabka gaadiidka tareenada waxaana ay u adeegi doontaa qadka tareenka isku xidhaya Djibouti iyo Addis Ababa qaybtan koobaad ee xaruntan Liibaan ayaa waxaa laga hirgeliyay 4 takhasus oo farsamo sida hawlaha iyo maareynta tareenka injineerka farsamada tareenka ganacsiga caalamiga iyo maareynta logistiga waxaana casharadooda ka bixin doona macallimiin u dhashay wadankaasi Shiinaha oo jaamacadaha wadankaasi wax ka dhiga waxaana ay ka kooban tahay xaruntani 4 qol oo lagu baran doono waxbarashada dhanka takhasuska tareenka iyo 3 qol oo iyaduna lagu baran doono takhasuska ganacsiga munaasabadaasi qodobka looga jeerayay ayaa waxaa gudoomiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geele oo weelisay marwada koobaad dalka Marwa Khadar Maxamuud Xayd sidoo kale waxa uu joogay xubnaha xukuumadda wafdi ka socda wadanka Shiinaha shirkado laga leeyahay dalkaasi Shiinaha sida shirkadda CCECC iyo waliba injineero iyo waliba danjiraha wadankaasi Shiinaha ee Djibouti iyo mas'uuliyiin kale oo isugu jira rayid iyo military waxaana xaruntani Liibaan ay ka qayb qaadan doontaa horumarka dhaqan-dhaqaale ee Jamhuuriyadda Djibouti dhanka ku aadan hawlaha caalamiga iyo waliba farsamasiinta ku aadan hawlaha tareenka madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo ka hadlay xafladda furitaanka qaybta cusub ee tababarada ee dugsiga sare ee Liiga ayaa waxa uu sheegay in wax weyn ay ku soo kordhin doonto dalka iyo guud ahaan gobolka badan bay soo kordhinaysaa shaqada shumandaferka la yiraahdo waa shaqo gooni ah shaqo gooni weeye 100 sano ka hor baa ay dadkeenu barteen imikana jiilkii ka qaadayay ee hore u sii wadayay iyo halkan lagu abuuray oo lagu barayaa wax oo tababarka lagu siinaya oo laga dhigaya dadka ayaguna macallimiin noqon doon taas weeyaan arintu aad baan soo dhaweynaynaa dawladda Shiin ee saaxiibka anahay iyo dadka ay soo dirtay oo safiirkuna uu madax ka yahay aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay caruurteennana maanta fursad baad haysataan ka faa'iideysta Maxamuud Cusmaan Bulxaan TV-ga caalamiga ee badda 24 Djibouti